waxaan leeyahay beeralayda reer Baki si aynu baahida uga baxno waa inaad wax beerataan oo aan gaadhno qaran isku filan si aan uga maaranno cuntada dibadda inooga imanaysa. Xildhibaan Maxamed Cumar Jaray oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baki ayaa maanta waxa uu kormeer ku soo sameeyay wadada isku xidha magaalooyinka Baki iyo Booramo oo dhismaheedu socdo isla markaana dhawaan la dhagax dhigay isla markaana uu dhismaheedu socdo wuxuuna halkaasi soo indheeyay sida ay shaqadu u socoto sidoo kalena waxa uu halkaasi kala hadlay bulshada ku dhaqan guud ahaanba degmada Baki in laga wada qayb qaato dhismaha wadadan isagoo fariin u diray ayaa waxa uu yiri Bismillahir Rahmanir Rahim maanta waxaan kormeer indhayna ku soo sameeyay jidka cusub ee dhawaan laga dhagax dhigay degmada Boorama iyo Baki isku xiri doona waxa farxad noo ah anoo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Baki inaan maanta ku soo beegano waqti ay bilaamayo jidka Boorama iyo Baki isku xiraya jidkan ayaa baahi badan ay u qabeen shacabka ku nool degmada Baki guud ahaanba waxa baahi weyn way degmada Baki waa degmada wax soo saarka xagga khudaarta macdanta iyo xoolahaba waa dadka ku nool degmada Baki waa dad beeraley xoolo dhaqato iyo macdanba halka Baki waxa yaala khayraadka yaala wada ma lahayn laakiin maanta wuxuu nasiib u heleen oo anagoo ah golihii deegaankana aan la kulanay inay maanta la bilaabo jidka isku xiri doona Baki iyo Boorama dhamaan waxaan u mahad celinayaa cid kasto ka qayb qaadatay oo ay ugu horeyso xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi iyo saddexda wasiir ee gobolka Awdal oo ugu horeeyo wasiir Dr. Ahmed Buuxane wasiir Saacin iyo wasiir Professor Amina Cilmi Fariid waxaan leeyahay gobolka waxaad keenteen mashruuci ugu ballaadhnaa kaasi oo dhiiri gelin doona isku socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada Baki iyo Boorama isla markaana u ah dhiiri gelin beeraleydii wax soo saari jirtay ee degmada Baki ee wada la'aanta ay uga baabi'i jireen muxuuha khudaarta ka soo baxday maanta waxay ku dhiiran doonaan inay wax kasta beeri karaan isla markaana ay geyn karaan suuqa dhamaan waa u mahadnaqayaa dhawaan iyadana waxa la dhisi doonaa jidka isku xiri doona ruqi iyo dila madaxweynaha ayaa ballan qaaday waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha dadweynaha ku nool degmada Baki guud ahaanba waxaan ku waaninayaa oo leeyahay waa inaad ka qayb qaadataan dhismaha wadadaasi oo aan u bilaabi doono dhawaan qaadhaankeegii wadadan waa carratuulku way naga baabi'i karaa waxaynu sameeynaynaa inaynu laami ka dhigano marka waxaan leeyahay qof kasto oo waxaad hayso u hur wadadaasi oo ka qayb qaado cid kasto ka shaqaysay iyo cid kasto wadadaasi gacanta ku haysa aad baan ugu mahad celinayaa maanta waxaad arki kartaan in daamurkii ugu horeeyay la soo rogay oo la rogayo iyadoo la dhigi doono wadada insha Allah ta'ala marka waxaanu hiigsanaynaa hadaan nahay golahayaga deegaanka ee degmada Baki shanta sano aan joogno inay Baki hesho wadooyin isku xira iyada iyo magaalooyinka ay xuduudda la leedahay sida Boorama Gabiley Lughaya iyo meelaha kaleba dhamaantoodba marka waxaan leeyahay shacabka waa inaad ka qayb qaadataan waxaan leeyahay beeralayda reer Baki si aynu baahida uga baxno waa inaad wax beerataan oo aan gaadhno qaran isku filan si aan uga maaranno cuntada dibadda inooga imanaysa waa Shucayb Maxamed Kaan Shucayb guys